السلام عليكم سو dhawaada saaxiibayaal waa taxanihiinii YouTube 2020ka maantana muuqaalkeenan waxaan ku eegi doonaa waxyaabo ku saabsiisan Google AdSense muuqaaladeeni hore waxaan ku soo baranay sida aad u samaysan lahayd channelkaagii saan hore idinku iri taxanihiinan wuxuu noqon doonaa taxana dhameystiran oo wax walba oo ku saabsiisan YouTube iyo Google AdSense inaan idinku faahfaahin doono ama waxyaabaha aan ka aqaan oo dhan idinku bidhaami doono maantana muuqaalkeenan waxaan ku eegi doonaa Google AdSense وانا muuqaalkeeni koobaad maanta waxaan doonaynaa inaan ka hadalno waxyaabaha uu baahan yahay channelkaaga inta aadan ku xirin Google AdSense iyo sidii aad ku heli lahayd addresskii waxyaabihii laga baahnay oo dhan ayaan maanta halkan idinku soo gudbin doonaa inta aanan u guda gelin sida aad u samaysan lahayd markaas Google AdSense waxyaabaha laga baahan yahay marka ama channelkaaga looga baahan yahay inta aadan ku xirin Google AdSense waxay tahay in aad buuxiso shuruudaha lacag furashada ee YouTube-ka YouTube-ka saan ognahay waxay leedahay shuruudo taasoo qofkii doonaya inuu AdSense ku xirto channelkiisa si markaas lacag uga sameeyo hor yaala shuruudahaasna waxay yihiin in channelkaaga ama YouTube channelkaaga looga baahan yahay 1000 subscribe iyo 4000 oo watch time hour ah 1000 subscribe waa fahmi kartaan laakiin watch time hour kan dadka qaar ma fahmayaan watch time hour waxa laga wadaa yaani dhammaan muuqaaladaada waa in la daawado 4000 oo saacadood waan ognahay halkii saac waa 60 daqiiqo waxaa muuqaaladaada oo dhan looga baahan yahay marka in la daawado ku dhawaad 4000 oo saacadood maahan 4000 oo daqiiqo waa saacad markii aad intaas samayso waxaad awood u leedahay marka inaad apply gareysato Google AdSense ama barnaamijka lacag furashada ee YouTube-ka qolada YouTube-kana way bedeleen sharcigii hore berigii hore waxay ahayd adigoo aanan gaarin sharcigii 1000 subscribe iyo 4000 ayaad waxaad sameyn kartay inaad codsato Google AdSense ama addresskaaga waxyaabaha aad ku sii buuxsato markii aad shuruudihii buuxsana ay si automatic ku soo aqbali jireen ama ay ku soo diidi jireen laakiin haatan sanadkan ay ku gudi jirno ee 2020ka ayay bedeleen barnaamijkaas oo channel walba oo YouTube ah waxa looga baahan yahay inuu marka hore buuxiyo shuruudaha 1000 subscribe waa inuu helaa iyo 4000 oo watch time hour waa inuu helaa si aad marka waxyaabihii looga baahan yahay channelkaaga iyo in aad buuxisay in kale si aad u aragto waxaan u baahnaa marka inaan soo furto Google Chrome ayaan soo furtay waxyaabahan ayaan idin tusayaa qaab muuqaal ahaan kadib halkan waxaad qoraysaa youtube.com marka aad youtube.com ku qorto marka waxaad sameynaysaa adigoo halkan jooga inaad desktop saarato browserkaaga saddexdan dhibcood ee qaybsar ku yaala tagaysaa kadib desktop site ayaad ka dooranaysaa halkan waxaan arki doonaa waxyaabaha uu ku leeyahay ama sida aad ku ogaan karto in channelkaagi uu buuxiyay shuruudihii iyo waxyaabaha soo dhan halka marka joogto marka waxa sameynaysaa inaad labada gacan isticmaasho oo aad zoom soo dhahdo kadib qaybtan sare ayaad dhima doontaa oo halkan aad waxaad ka dooran doontaa marka profile icon-ka ama channel icon-ka ayaad ka dooran doontaa kadib halkan waxaad ka sii dooran doontaa marka YouTube Studio ayaan dooran doonaa YouTube Studio marka sida tan ayuu kugu soo muuqan doonaa halka marka aad joogto waxaad sameynaysaa marka inaad labada gacan isticmaasho oo zoom soo dhahdo si aad u soo dhaweysto waxyaabahan waxaad marka sameynaysaa inaad calaamadan dollarka saanka dollarka korkiisa ayaa taaban doontaa ama waxyaabahan oo faahfaahsan si aad u aragto saddexdan ulood ee qaybta sare ku yaala ayaa tagaysaa kadib halkan waxaad ka arkaysaa monetization meel ay ku qoran tahay kaliya halkaas taabo markii halkii aad soo taabato marka wuxuu kuu soo furi doonaa general monetization haddii aad hoos imaado marka halkan waxaad ka arkaysaa in uu inoo soo saaray qoraal kaasoo uu leeyahay you are not eligible for monetization wuxuu leeyahay YouTube partner program lagama helayo wadanka aad haatan joogto ee Soomaaliya wuxuu kaliya hadaan qalad sameeyno fadlan update gareey location-kaaga saad halkan ka fahmaysa marka wadanka Soomaaliya ama wadankeena adigoo jooga ma samaysan kartid Google AdSense sababaha jiran waxay tahay maadaama wadankeena uusan lahayn address iyo waxyaabahaas qoladan Google AdSense waxay kaaga baahan yihiin marka si aad channelkaaga lacag ugu furato address ayay kaaga baahan yihiin waan ognahay wadankeena address ma lahan qaabka aad address ku heli karto waxay tahay waan ognahay maanta reer walba oo Soomaali ah qof ayaa dibad u jira hal qof laba qof saddex qof taasna waa macquul in lagu jirina way dhici kartaa balse kaliya qofkaas dibadda ku jira ayaad waxaad sameyn kartaa in aad addresskiisa weydiisato wadamadan haatan inoogu sokeeya sida Kenya iyo Uganda address way leeyihiin wadamada Yurub ku yaala ama Mareykankana taas isweydii ma laha address way leeyihiin marka haddii aad taqaan qof jooga Kenya waxaad dhihi kartaa addresskaaga baan u baahanahay haddii aad taqaan qof jooga Uganda addresskiisa ayaad isticmaali kartaa haddii aad taqaan qof jooga Yurubna sidoo kale wadamada Yurub badankooda way leeyihiin wadamada South America ama North Americana way leeyihiin address marka haddii aad joogto Soomaaliya dhibkan ayaa ku hor yaala si aan marka haatan aan uga bedelno wadankeena Soomaaliya maadaama uusan AdSense ogoleynin
waxaan samayn doonaa inaan halkan imaado calaamadaas settingka ee qaybta hoose ku taal ayaa imaan doonaa. waxaan samayn doonaa in aan ka bedelo waddanka, yacni janaal Kenya ayaa waxaan ka bedelayaa waddanka si markaas aan u aragno waxyaabahan oo faahfaahsan. settingkaas ayaan taaban doonaa. kadib halkan ayuu kuu soo gudbin doonaa. marka halkan waxaad kasii dooran doontaa janaal ayaad ka dooran doontaa halkan. kadib halkan waxaad ka arkaysaa adigoo basic info jooga qaybtan hoose waxaad ka arkaysaa country, waxaana inoo saaran waddankeena Soomaaliya. marka waxaan samayn doonaa waddanka ayaan ka bedeli doonaa. falaartan yariista ayaad furaysaa. kadib halkan wuxuu ku soo tixi doonaa marka wadamadii caalamka oo dhan ayuu ku soo tixi doonaa. wadamadan meesha ku wada yaalo oo dhan badankooda address way leeyihiin, balse qaar yar oo kamid ayaana lahayn address. tusaale ahaan mid kamid ah wadamada addresska leh ayaan dooran doonaa. kaliya maanta muuqaalkeenana waa tijaabo qaabka loo sameeyo Google AdSense. muuqaalkan muuqaalka ku xiga ayaan ku eegi doonaa. tusaale ahaan United Kingdom ayaan doortay. markii halkii aan doorto waxaan leeyahay save ayaan leeyahay. isla markiiba waxaad ka arkaysaa meesha haday in ay isbedeshay. haddii aan zoom idiin soo dhaaf marka wuxuu ku leeyahay grow with YouTube ayuu ku leeyahay. halkan grow with YouTube ka hooseysan qoraal ayuu ku soo tixi doonaa. wuxuu ku leeyahay as YouTube partner. waxaad u yeeli doontaa marka inaad channelkaaga lacag ka hesho waxyaabahaas ayuu ku leeyahay. haddii marka qaybtan hoose imaan wuxuu ku leeyahay si aad YouTube partner uga mid noqoto waxay ku leeyihiin waxa channelkaaga looga baahan yahay ayuu ku leeyahay 4000 oo public watch time hour, yacni 4000 oo saacadood oo public ah. haddaad muuqaaladii aad ku upload gareysay oo aad ku heshay watch time hour-kii ama hour-kii kadibna aad delete gareysay ama aad private ka dhigatay kama yeeli doonaan qolada YouTube-ka. public watch time hour ay ka baahan yihiin, yacni muuqaalkaaga waa inuu public ahaadaa. muuqaaladii aad ku heshay watch time hour-ka waa inay public ahaadaan, janaalkaada aadan ka delete garayn ama aad private ka dhigin. haddaan qoraalkan si aragno waxay kale ku leeyihiin 12 bilood ee la soo dhaafay gudaheeda waa inaad ku keentaa. 12 bilood waxay u dhigantaa sanad, balse saan arkay muhiim ma ahan sanad inaad ku buuxiso. channel badan baan arkay iyagoo 12 bilood aanan buuxinin qolada YouTube-ka ay u soo fureen AdSense-ga. kaliya waxaad u baahan tahay marka adiga inaad 4000 gaarto iyo 1000 subscribe kadibna aad apply garaysato. halkan wuxuu kuu sii leeyahay 1000 subscribe ayaa laga baahan yahay. kadib channelkaada review ayaan ku samayn doonaa, dib u baaris ayaan ku samayn doonaa ayuu ku leeyahay. halkan hoose marka maadaama channelkeena haatan uu cusub yahay waxaad ka arkaysaa waxyaabaha laga baahan yahay. marka halkan uu tusaya 1000 subscribe ayaa laga baahan yahay, 4000 oo watch time hour ayaa laga baahan yahay. halkan 00 ayaan joogaa. mar walba oo channelkaaga 1000 subscribe uu gaaro halkan wuxuu ku leeyahay calaamad cagaaran oo tick ayuu ku saari doonaa. halkan hoose wuxuu ku leeyahay ii ogeysii markii aan gaaro 1000 subscribe iyo 4000 email ahaan ay kuu soo diri doonaan. tusaale halkaas haatan haddii aan taabto waxay ku leeyihiin markii aad waxyaabahan buuxiso ama channelkaagii loo ogol yahay inuu apply garaysto Google AdSense-gii email ayaan kuu soo diri doonaa ayay ku leeyihiin. marka inta aadan Google AdSense ku xiran qolada YouTube-ka waxay kaaga baahan yihiin marka inaad buuxiso shuruudihii aan idiin soo sheegay 1000 subscribe iyo 4000. si haddii loo fiiriyo way fududahay, si haddii loo fiirina way adag tahay helitaankooda, laakiin hadba waxay ku xiran tahay adiga iyo sida aad u shaqayso, yacni adiga dadaalkaada un bay ku xiran tahay. maalin walba haddii aad muuqaal soo dhigto kuna daawata 100 qof waan hubaa inaad heli doonto 4000 oo saacadood. dadka inta badan waxay ka qeyliyeen 4000 subscribe. runtii si haddii loo fiiriyo way sahlan tahay, laakiin dhalinyaro aad u fara badan baan arkay oo ka qeylinaya 4000 oo saacadood, balse waa muhiim inaad buuxiso shuruudahan. marka muuqaalkeena koobaad ee tijaabada ahaa waxyaabaa laga baahan yahay channelkaaga iyo sidii aad ku heli karto address-ka maanta waxaan jeclahay inaan halkaas ku soo gabagabeeyo. insha Allah muuqaalkeena xiga ayaan ku arki doonaa qaabka aad u samaysan karto Google AdSense adigoo markaas isticmaalaya mobilkaaga. waxaan jeclahay maanta muuqaalkeena inaan halkaas ku soo gabagabeeyo. waanu saaxiibkeen Cusmaan oo leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.